inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun. Aabihiis ayuu rasaas ku jarjaray caawa magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag. Wiilkan hadda maxay tahay sababta uu wiilkani aabihiisu ku dilay? Ciidamada Somaliland ayaa gacanta ku soo dhigay wiilkan oo ka soo jeeda koonfurta gobolka Sanaag, gaar ahaan degmada Kulaal. Dilkan naxdinta leh iyo siduu u dhacay aynu barnaamijkana maanta aynu ku dahqaadayna. Hayeeshe daawada intayna barnaamijka u guda gelin, fadlan aanu ducayno marxuumka. ku soo dhawaada Halhays TV. Wararka naga soo gaaraya magaalada Ceergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa sheegaya nin dhalinyaro ah uu toogtay aabihii dhalay. Marxuumka oo lagu magacaabi jiray Xamari Cabdi Aar ayaa saacado ka hor ku geeriyooday magaalada Ceergaab isagoo sababsaday gacanta wiilkii uu dhalay ee uu soo koriyay. Eedeysanaha dilka geystay ayaa la sheegay in aabihii oo uu toogtay inay isku maandhaafeen arrimo qoys. Qoyskani waxay ka soo jeedaan beelaha Harti, dhulbahanta gaar ahaan Nalay Axmed. Ciidamada ammaanka gaar ahaan kuwa booliiska ee Somaliland ayaa soo qabtay saacado kadib isagoo baxsada kadib markii uu aabihii dilay. adiga diyaa baa soma adiga diyaa way baa ku ci wadaga abuki waxaan cadeynayaa hadalkan oo kuma adiga diyaa baa soma adiga ayaa dilay aabahay oo loo jeedo maxaa loo jeeday maxamed cabdi هو حقر يا أحمد هو يا هذيك مو يعيش على الموسو قال الناس كاه يضربونه ولا يعتبر ما بعينه هذيك ويلي تارك على ما هو تارك على الصوت راي سوري يوم اللي بدلنا وحرا أبى يقولوا لك ذي محمد عبد النور محمد عبدي نور عندنا كنت اللي حافظ طبعا قول لي حسابيها كنت جاتو وتقول لي حسب اليوم قول لي حساب ليش وين برجعتوا سيارة صارت عيسى ها أقول لك أنا كنت ذي وحاها صالح سي صالح يقول لي بزاف الوسط ويدي ها صالح كوريا سلا يا يجي يقول لي الحمد لله فوق عليا ما كنت فوق عليا حرك هوران وبيجي أقولي كحرة يا حرك هورا أقول كحرة بايل وكفرة بس بير في كحرة أنا أقول بير كانت كفرة ثانية أساسا وقعت ما قصدي ليه بقولي ما يكمل ما قصدي ليه ما أقول زوجة لا شيء أقوله يجوا يا طيب هل تشي هذا هل تشي هذا تسوس وحن أنا مسوي مكان ولا هوا تسوس معايا كلام معي لا دول يتوه شيء بيحرق أنا حوك سوي أنا أقول يا مجال الجري يا إذا هذا ممكن مجال قام هذا وسوق الهواء حلا يا عمل له بدر كي سوقات عبا كويس ورديهم ما ذا كذا مسعى كذا عبا كويس يا عبا هذا بيسي ماي
هذا كل شيء كل الحسابيات wade ma ka cabanaysaa dhagxaan keliyaha kaaga jira adiga ma la ildaran tahay oo ma la xanuunsanaysaa caabuqa kaadi mareenka kaadida ma hayn kari la'dahay ma ku gubaysaa kaadidaadu hadday jawaabtaadu tahay haa waxaa soo baxday daawada baatagen oo daawo heerbala taasoo laga soo saaray dalka ugu muslimiinta badan ee Indonesia malaayiin muslimiinta Indonesia ayaa isticmaala dawadan ayaa hadda sanadihii dambe sare u kacday dalabkeeda waana dawada baatagen oo ah dawada ugu badan ee wadamadu ay ka dalbadaan dalka Indonesia dawadan maxay dawo u tahay maxay faa'iido ku leedahay adiga isku daweynta baatagen waxay la diriiraysaa caabuqa kaadi mareenka waxay baabiinaysaa oo meesha ay ka saaraysaa dhagxaanta kaliyaha kaaga jira adiga waxay baabiinaysaa dhagxaanta xameetida waxay nadiifinaysaa oo clean ay ka dhigaysaa kaadi haystaada waxay baabiinaysaa xanuunada galaha dawadan baatagen waxay hagaajinaysaa socodka kaadidaada waxay la diriiri doontaa kaadi beelbelka ama kulaylka waxay dawadan baatagen ay la dirtaa kaadi baxsadka oo qof kasta oo aan hayn karayn kaadida oo suuliga kula cararaya waa dawadii u baahnaa inuu isticmaalo muddo badan ayuu xojin karayaa kaadida dawadan baatagen inta badan xanuunada xubnaha taranka iyo xameetida ayay dawo u tahay sidoo kale daawadan waxaad u isticmaali kartaa ka hortag ma tahay qof shaqadiisu u badan tahay fadhi ma tahay qof socodkiisu yar yahay ma tahay qof si joogta u cabba cabitaanada soodhada ku jirto jilbaha iyo dhabarku ma ku culus yihiin xilli walba haddaba si aad isaga ilaaliso inay xaaladahaasi kugu keenaan xanuuno culus oo saameeya keliyaha iyo xameetida waxaad si ka hortaga u qaadataa daawada baatagen oo ah daawo dabiici ah oo lagu farsameeyey mid ka mid a warshadaha waaweyn ee dalka ugu muslimiinta badan dunida ee Indonesia shirkadda dawooyinka heerbalka ee Tamam Pharma waxay xarumo ku leedahay dalkeeni hooyo ee Soomaaliya iyo wadamada dariska dawadan waxaa lagu keenayaa meeshaad ka joogto dunida kadib marka howlwadeennada shirkaddu iyo dhakhaatiirteedu ay kaa wareystaan xaaladaada caafimaad ee haddaad ku sugan tahay adigu hadda si aad ula xidhiidho wacna baradan WhatsApp ee shashada ku qoran